halkee ayuu ku yaalaa qabuuraha ugu quruxda badan adduunyada ee leh beero lagu nasto maqaayado lagu cunteeyo qolal la seexdo iyo hoolal xafladaha lagu qabsado dhismahan idin muuqdo ma ahan hotel 5 star mana ahan goob ganacsi ama mall ee waa qabuuro dadka lagu aaso intaan u gudagalno sheekadan fadlan waxaan ka codsanayaa inaad 3 jeer koobi linkiga inoo taabato sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad follow-na soo dhahdo si aad noo dhiirigeliso dhismahan oo lagu magacaabo Commercial Memorial Necropolis waxa uu diiwaan gashan yihiin xabaalaha ugu dheer adduunyada waxaana ka kooban yahay 14 dabaq oo si heer sare ah loo dhisay wuxuuna ku yaalaa wadanka Brazil magaalada Santos xabaalahan ayaa lagu aasay dadka lacagta leh iyo madaxda iyo dadka magaca ku dhaxleh bulshada reer Brazil waxaana qol ku yaala dabaqa 9aad dhawaan lagu aasay ciyaaryahankii hore ee kubadda cagta Pelé kaasoo toddobaadkii hore u geeriyooday cudurka kansarka xabaalahan ayaa ku yaala deegaanka Santos oo ay ahayd goobtii uu ku soo shaabaxay ninkii noqday boqorkii kubadda cagta Pelé kaasoo 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka waxaana xabaalahan la dhisay sanadku markuu ahaa 1983 waana qabuuro leh beer weyn maqaayado cunto iyo madxafyo lagu keediyo aasaarta haddii aad bilowga ilaa dhamaadkana la joogto inoo soo qor aragtidaada ku aadan muuqaalkani mahadsanid